طيبة يا طيبة يا داوى العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي هذا example-ka 13 ee chapter-ka koowaad ee xisaabta form 4 ka ayaan sharxaynaa. waxaana leeyahay hadaba simplify iyo yareeya each expression oraah walba oo soo socoto xisaabeeda hala yareeyo ayaa leeyahay. waxaana lahay cos squared 7x laga jaray sin squared 7x. b waxaana lahay iyadana sin 15 degree cos 15 degree. dabcan haddaan ku hormarno qaybta koowaad ee ah waxaana lahay cos squared 7x minus sin squared 7x hala yareeyo. dabcan simplification-kani wuxuu gelayaa double angle ayuu gelayaa. waxaa laga maarmaana marka oo ardayduna ay hore usoo barteen qaacidooyinka double angle-ka. tusaale waxaad ogtihiin in waxaad garanaysaa oo aad taqaanaa waxa loo yaqaano cos 2a wax ay la mid tahay cos oo double angle ah ama cos 2a waxaan ognahay inay la mid tahay cos squared a minus sin squared a. taasoo macnaheedu tahay mar waliba aan aragno cos oo laba jibaaran oo angle wadata oo laga jaray sin oo laba jibaaran oo iyadan angle wadata, waxaan ogaanaynaa in asalkeeda ay ka timid double angle oo cos ah. double angle-kuna macnihiisu waxaa waaye angle-ka meesha yaalo laba ku dhufo oo keliya waaye. marka haddii sin squared a minus cos squared a minus sin squared a haddii la mid ahayd cos 2a, haddaba haddaan dib ugu soo laaban example-keeni asagana waxaa muuqato inuu double angle geli doono oo meesha waxaa taal cos squared 7x minus sin squared 7x. meesha a ahayd booskeeda waxaa soo galay 7x oo keliya ayaa soo gashay. haddaba waxaa dhahna marka kani wuxuu ka yimid double angle, weliba wuxuu ka yimid double angle oo cos ah ayuu ka yimid. double angle-na macnihiisu waxaa waaye laba ku dhufo angle-ka meesha yaalo. angle-ka meesha yaalana waxaa waaye maanta waa 7 waaye. warkan hadda wuxuu la macnayahay ayaan dhahaynaa cos sideeda hanoo ahaato laba haddii 7 xa lagu dhuftana waxaa soo baxayso 14 xa. hadda waxaan leeyahay marka cos squared 7x minus sin squared 7x waxaa u dhigmato cos 14 x ayaa u dhigmato. waaya su-aasha labaad ama qaybta b ayadana haddaan galno qaybta b adna waxaana la siiyey ayadana sin 15 degree cos 15 degree. dabcan simplification-kan asagana double angle ayuu aadayaa. si aan u ogaan double angle-ka uu aadayo iyo sida macaamilka uu noqonayo waxaa rabaa inaad dib ku xasuusiyo double angle-ka qaacidadii sin ayaan dib ku xasuusinaya. waxay ogsoon tihiin sin 2a ama double angle of sin marka la furfurayo inay noqonaydo 2 sin a cos a inay noqonayso. dabcan warka macnihiisu waxaa waaye 2 sin a mar walba aan aragno sin iyo cos oo isku dhacsan waxaan ogaanaynaa ama aan ictibaarinaynaa inay ka imaatay double angle oo sin ah. haddaba sin iyo cos isku dhacsan sidee double angle looga dhigaa qaabkaas ayaan fiirinaynaa. dabcan meesha hadda waxay ugu jeediin sin 2a inay la mid tahay 2 sin a cos a. haddaba haddaan 2 sin a cos a joogo sin 2a dib ugu laaban karaa. see u laabanayaa marka ku laabanaysa waxaa sameynaya marka koowaad sin a cos a waxay haystaan horgale ah 2. horgalahaas labada ah waxaan u qaybinaynaa 2 haddii 2 loo qaybiyo maxaa soo baxayo 1 horgalaha lama sheego sin oo keliya ayaa la oranayaa. kadibna waxaan qoraynaa 2 ilaa double angle-ka macnihiisu waxaa waaye angle-ka meesha 2 ku dhufo taasoo macnaheedu tahay 2 lagu dhuftay a oo 2a ah. marka mar walba oo double angle oo sin aan dib ugu laabanayno waxaa sameynaynaa wixiina la siiyey oo sin cos ah horgalaha ay wataan ayaan mar walba eegaynaa. horgalahaas waxaan u qaybinaynaa 2 wixii noo soo baxo ayaan qoraynaa. kadib waxaan qoraynaa sin angle-kana double ayaan ka dhigaynaa oo 2 ayaan ku dhufanaynaa. now hadda waxaan dib simplification waxaan ku sameyn karnaa sin 15 degree cos 15 degree anagoo u celinaynaa double angle-ka ka timid oo ah sin. markood waxaan fiirinaynaa horgalahooda sin 15 degree cos 15 degree waxaa muuqato inay wax horgalaha oo muuqda aysan lahayn.
that means horgala waxaa u qorsoona hal marka kood horgalahaas halka ah ayaa waxaan u qeybinaynaa horgalahaasi labo kadib waxaa soo baxaya 1 divided by 2 kadibna waxa meesha yaalo waxaan ku celinaynaa double angle oo sin oo waxaan leeyahay sin waxaan ogtiin double angle ku macnihiisu inuu yahay labo ku dhufo angle ka meesha yaalo maanta angle ka meesha yaalo waa 15 degree hadda waxaan leeyahay warkan asagana wuxuu la sii macno yahay hal la hoos dhigay labo oo ku dhacsan sin laba haddii 15 lagu dhufto waxaa soo baxayso 30 degree ayaa soo baxayso warka asagana wuxuu la sii macno yahay hal la hoos dhigay labo oo ku dhacsan dabcan 30 degree wuxuu ka mid yahay special angles that means sin qiimaha ay ku leedahay waa la garanayaa waxayna la mid tahay 30 qiimaheeduna uu yahay half ama 1/2 warka wuxuu la macno yahay ayaa oranaynaa marka iyadana sare ku dhufo hoose ku dhufo sare waa hal haddii hal lagu dhufto hal soo baxayo laba haddii laba lagu dhuftana afar soo baxayso hadda waxaa leeyahay marka 15 degree 15 degree waxay u dhigmataa 1 divided by 4 ay u dhigmataa waxaan gelaynaa now example-ka 14aad xisaabta form 4 cutubka koowaad waxayna leedahay right qora sin 3x ayaa in terms of waxa u qoraysiin sin x ahaan qora dabcan hada meesha waxa ku haysanaa waa sin laakiin sin ka haysanaa angalkiisu waa 3x waxaa la rabaa in loo qoro sin x ahaan taasoo macnaheedu tahay waxaa laga rabaa functionka inuu noqdo sin angalkan waxaa laga rabaa inuu noqdo x hadda functionkii waa haynaa waa sin laakiin angalka ayaan x ahayn oo 3x weeyaan haddaan rabno su-aasha markaynan ka shaqeyno sideen yeelinaa marka koowaad waxaana la siiyey waa sin 3x waxaa haysana waa sin 3x sin 3x marka waxaa la rabaa in loo qoro in terms of sin x marka koowaad waxaan dhahaynaa sin waa functionkiina la siiyey sidiisa inoo ahaado laakiin 3x waxaa loo qori karaa x oo lagu daray 2x maxaa la dhahaa x hadda 2x aan ku darno waxaa hubantay inay 3x soo baxayso okay haddaba sin x plus 2x ayadana waxaa lagu sameyn karaa expand ama fidin ayaa lagu sameyn karaa maadaama ay tahay sum oo sin markii la fidinayana waxaa la yidhaahdaa tusaale hore waxaan usoo marnay sin a plus b inay lamid ahayd sin a cos b plus cos a sin b that means maanta marka tan sidii oo kale weeye a booskeeda maanta waxaa joogto x b booskeeda waxaa joogto x mar walba oo sum oo sin la fidinayana qaabka loo fidiyaa waxay noqotaa mar walba sin cos sin haddaba haddaan fidina kan muxuu noqon doonaa sin ayaan oranayaa marka koowaad angalka koowaadaas ina oo x sin x ayuu noqonayaa kadib waxaan leeyahay cos angalka labaad ayaan siinayaa oo ah 2x meeshaan plus taalo halkan waxay noqonaysaa iyadana plus kadib waxaan leeyahay cos angalka koowaad ayaan siinayaa kadib waxaan oranayaa haddana sin angalka labaad ayaan siinayaa that means marka sin x plus 2x markii la furfuro waxay noqonaysaa sin x cos 2x plus cos x sin 2x oo qaabkii furfurmaysa waa sin cos sin okay now waxaan leenahay marka kan dantii aan kale waa ka gaarnay asalkiisii ku celiyay haddaba marka sin 3x haddaba waxaan oranaynaa waxay la mid tahay halkan waxaa yaalo sin x wixii nagala rabo waaye ayadu sideeda ha inoo ahaato waxaan markayna bedelanaynaa cos 2x waxaa hubantiya sin x waxay ku dhacsan tahay cos 2x marka saddex siyaabaa loo furfuri jiray mar waxaa dhihi jiray cos squarean minus sin squarean marna 1 minus 2 sin squarean noqonaysay marna waxay noqonaysay 2 cos squarean minus 1 dabcan annaga waxaan rabnaa maanta waa inay wax dhan ay noqdaan sin sida la jeed cos 2x waxaan u furfuraynaa sin ahaan oo kaliya aan furfuraynaa that means marka cos 2x waxay la mid tahay oranaynaa hal laga jaray 2 sin laba jibaaran x ayaan oranaynaa okay dabcan meesha waxaa yaalo plus kiisaan soo celinaynaa cos x kaana asagana sidiisa ayaan soo celinaynaa waxaan furanaynaa bracket si aan u furfurno sin 2x ayadana waxaa loo furfuraa hal siyaab oo kaliya oo waxay noqonaysaa 2 sin x ay noqonaysaa cos x okay now marka hadda
waxaan markaan furfurnay double angle-kii marka koowaad sum x baan ayaan sameynay haddana double angle-ka wixii ahaa double angle ayaan furnay waaya hadda waxaan leenahay marka sin x gudahaan ayaan ku furaynaa haddaan sin x gudahaan ku furno 1kan wuu ku dhacayaa 2 sin square-na wuu ku dhacayaa sin x haddaan 1 ku dhufto dabcan waxaa soo baxayso sin x ayaa soo laabanayso mar kale isla sin x-tan haddii aan ku dhufano 2 sin square oo minus haddaan ku dhufano waxaa soo baxayso minus 2 sin cubic x ayaa soo baxayso maxaa yeelay kan square wataa kanna jibaar wana u qarsoon jibaarada isku darsamaya cubic ay noqonaya waayo qoladan ayagana waxaa dhahana cos x-tan ayaa waxaa lagu garaacaya gudahan cos x marka gudahan ku garaacno waxaa meeshan ku jiro 2 sin cos hal xabis isku yihiin haddii cos x lagu dhufto marka cos x coskan ayay ku dhacaysaa oo waxaa soo bixi doonta oo keliya 2 sin x ayadu sideedii ahaanay cos iyo cos haddii isku dhacaanna waxay noqonaysaa cos square garaysan x ayay noqonaysaa okay now hadda waxaan leenaha warkaan asagana wuxuu sii dhigmaa sin x sideeda hanoo ahaato waa wixii aan u baahnayn waaye minus 2 sin cubic x ayadana waan u baahannahay sideeda hanoo ahaato plus 2 sin x ayadana sideeda hanoo ahaato now maanta waxaan bedelinaynaa cos square x ayaan bedelinaynaa cos square x maxay u dhigmataa marka dabcan waxaa Pythagorean-ka kusoo marnay sin oo la isku wargareeyay oo lagu daray cos oo la isku wargareeyay waxay la mid tahay hal Pythagorean dhantii qaacido kamid weeyaan taasoo macnaheedu tahay marka haddii cos square loo baahdo sin square-na la wareejinaya dabcan haddii la wareejiyana sin square minus ay noqonaya oo waxaa lahaa cos square waxay u dhigmataa hal oo laga jaray sin square ayay u dhigmataa ayaan oranaynaa oo x okay now hadda waxaan leenahay marka waxaa noo dhiman oo keliya operationka inta dhiman inaan dhamaystirno meeshaan waxaa taala sin x sideeda ayay noo ahaanaysaa minus 2 sin cubic x ayadana sideeda ay noo ahaato 2 sin x-tan ayaan gudaha ku furaynaa 2 sin x-tan haddaan ku dhufano waxaa soo baxayso plus 2 sin x ayaa soo baxayso isla 2 sin x-tii haddaan minus sin square garaysan ku dhufano waxay noqonaysaa minus 2 sin cubic x ay noqonaysaa lianna kanna waa square kanna waa jibeerkiisa loo qarsoon cubic ay noqonaysaa kan horgal laba wataa horgalahaas labada ah minuska markuu ku dhaco minus ayuu noqonayaa okay now hadda waxaan fiirinaynaa haddii jiraan wax isku mid ah oo ama la isu dari karo ama kala jarmay haddii jiraan dabcan meeshan waxaa taala sin x digrigeedu waa hal halkan waxaa taala 2 sin x oo iyadana digrigeedu yahay hal maadaama labadan sin isla yihiin waa la isku darayaa hal sin x laba sin x ku darayaa la oranayaa waxaana soo baxayso 3 sin x ayaa soo baxayso sidoo kale meeshan waxaa taalo sin cubic iyo sin cubic dabcan waa isku degree kana waa cube kana waa cube horgalayaashooda kana waa minus 2 kana waa minus 2 calaamadahooda waa isku mid maadaama ay minus wada yihiin way isku darsamayaan laba ku darayaa la oranayaa afar ayay noqonaysaa laakiin afarkaas minuskiisii ayuunbuu sii joogi doonaa waxaan oranaynaa minus 4 sin cubic x na xaba ayaan kasoo qaadanay now marka haddaba waxaan oranaynaa sin 3x waxay haddaba u dhigmataa in terms of sin x markii loo qoro 3 sin x minus 4 sin cubic x يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان